maaha afkan qura dhulbahanta qura ku hadli mayno anagoo ku hadlayna dadka deegaanka dega oo ka kooban beela daarooda harti iyo reero kale daarooda weheliya halka ay ku qabo ha daarood oo dhan iyo hartiba halka ceere gaaba degan laakiin se reesha qisxaaq ma degana oo garaxtis ma degana oo habariyoonis ma degana laakiin waxa degan reer yaro Muuse Ismaaciil leeyahay garxis orda wax iska celiya garxis ceer gaaba ma wada digay ceer gaaba waxa jeesas baa yaala niman Muuse Ismaaciil iyo niman aan iskuulka dheenga wada dugno baa ceer gaaba degan aqliyada noocaasa ayaa lagu leeyahay waa nabad baan kuugu baaqay waxa laga soo jawaabay oo gaastiri ku riday waa Suldaan Madar hadalkiisii Suldaan weyn baa hadlayay Suldaan Ali baa lagu yiri baa la yiraahdaa laakiin dadka hadaan wareystay ninkii talada hayay waxa lagu yiri Maxamed Xirsadani baa uu xanuunsaday waayo odagaasi hadalkiisu ma ahayn nin weyn oo mas'uul hadalkii ma ahayn laakiin kii nabadda ahaa bilaa shuruudees ee cadde gudda ku dhawaaqay lagama jawaabin meelna laguma soo qaadin ninkan aqliyadiisa ayaan aad ula yaabay kuye harti iyo reero kale daaroodaba halka degan ceere gaaba magaalada laakiin ma degana isaaq garxajis ee waxa degan Muuse Ismaaciil markaa ma oori adigoo aad qabtaa aba aqliga maranka Muuse Ismaaciil miyuusan ahayn labka habariyoonis ee garxajis ee reesha qisxaaq ee geeriisa aad hal habeen xataa xiliyo aad kula dhaxdo aad weyday ee ka soo furtay ee labada dhiga dheerahe sida uu fooriyayna ka soo kaxaystay miyuusan ahayn ka martida edebta daran aad gurigiisii ku tahay miyuusan ahayn xageed aniga reerkayaga aad iyaga aad u kala guranaysaa ee daaroodoo dhanna atunka aad ugu wada sitayd uga dhigaysaa ceere gaabo meel uu daaroodoo dhan wada dego miyaanu ka aqli liidana taad maanta ku hadlayso awowga ayaanu ka qaadan weynay isagoo taa ku riyoonayana godka ayuu la galay adna waa la galaysaa ee taa ku biyacab ayaa ku leeyahay wariyaa reesha qisxaaq iyo garxajis iyo habariyoonis iyo Muuse Ismaaciilna hamoodin sharabaadada ilma darawal oo dhalay ee DN-kooda ilaa hadda uu ku maqan yahay boqor buurmadow oo soo magaranaysa taraarixiyay islayna darawalkiini weynaa labadan nafar hadduu ku darnaan jiray waa lagu digtaa oo leeyo tale waa bal hadda dayay waa kuwa sii dabayshaday sharabaada harti لا إله إلا محمد رسول الله نمكني ضد باو يقانا إن تلكود قرحتيس أي مثلان نمكني ضد باو يقانا إن أي تلكود شرفتي سيكرا مديس كشقيان كما شقيان وحكا شقيان إسديلك الراشق الصحاق إيا منافقة الراشق الصحاق إن الدروال مركا يركانا ويصول نيكيان نيكي هستي نيكي عيالك الدنبه أيا أولا صار والله 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 وعقل حمدو دي الدمير حمدو ده ونمكني هذا الكي ولين الدروال ستو سو بدلاي يجري نبض يشرفته كباقي الله هيا بالقرآن خلي قريه إن الدروال منافق ما هو نمر كيسو وعدي هاي هالكو صعدنا يتقانا لكن سكب قال كيسة شربات ظهرتي يسرهرتي رجال الله يلاحظا ما هنقر حجز هدوي هي يسرهرتي هدوي هي شربات ظهرتي إن هذا يروق عليه موسى إسماعيل عندها سياد adigoo technique wata isagoo probogos wata ad geeriysi dhacday wallahi billahi tallahi habeen ayaad ka haysan leed hal habeen waad ka haysan kari weeyday xiniyahaas uu garxajislibaxnimadaas uu leeyahay iyo geelabkaasi ayaa ka dhashay kaas ayaana matala garxajis ee ma matalo mid adiga kaba qaad ku ah oo ina darawal ah oo DN-kooda aan la hubin boqor buurmadow ilaahay baad ku dhashay muuqaalkani iga gaarsiiya awowga caliye kuwan DN-kooda noo soo bar adiga waxani khibrad u leh oo ina darawal ba magaranaysa noo soo qarxiyay khayr ilaahay ku siiyay labadanna nagaga soo dar oo waxa weeyaan qonna farkan yara ka sheekeeya maalin walba xaafadaha ee heblaaya halka u dhacday quraac baagiye haydaro iyo shumburo ayuu Muuse Biixi sida wadada ugu saydiyay oo islaan yar oo garxajisa baa jagwir ka jartay oo tadheer ka jartay waxaas uu ka sheekeeya waa wallahi billahi oo maalin walba tooshkaygi gurigaas u haya maye suugaygi wuxuu hayaa badda
وعترة بدشلة اسكو هايست سياسي وين أو يقارا وحي سياسة لقاي ويو يقارا سياسة دا ريرنمو حتى ريرنمو دا حدين لقد تمرايا ماركي داسدين هنا ميلها معاوي هلا هيدو ليلا لساري لها بالله وحبي هلا شرف بلا ريرنمو دا waxa laga tuntaa halka ugu xun xariga ugu xun ee labiyo kontraad baa laga soo garaacdaa oo Hargeysa iyo reesha Isxaaq dhexdooda in dabka ay saaraan waxay ka jecel yihiin oo ay xoog weeyeen oo ka af adag yihiin malahan in darawalon baa soo hadlaayo wax soo qorayo fish biiq iyaga ma soo horyaacay dim oo ftada soo ruuxayo waxaasa markaa reesha Isxaaq noqonayo waxaasa garxajis noqonayo waxaasa noqonaya habar Yunis ma waxaasa Muuse Ismaaciil noqonay laan dheerayaasha halkaas geeloodii hal habeen harti briqayru haysan kari waayay iyagoo wataban kuuri technical ayaa inta laga soo qabsaday geeli exchange loo sameeyay labada propagaste dahay qaata maxaa la sameeyay subaxii dambe oo ruux la dheersana Muuse Ismaaciil jagwin inta sida looga jaray jagwin baa laba dhayne labadii propagasta lagu soo bedeshay with طايا اروح عند معنا مع بيكيال gaari wacan jabanayo waxana haye iska soo kaxaysteen oo garxajiska lagu sheegaya habeen yorista lagu sheegaya Muuse Ismaaciilka lagu sheegaya waa laan dheerahaasi hadaba aad geeliisa aad habeen haysan kari weeday abahana ala ku yaare maahan sharabaad hartigaasi maahan kuwaasi aad isticmaalayso aad tolkoodu isticmaalayso reerka ka dhasheen sidii maskaynta qoorta sida maanta iskaga duubeen yiri garaadku nabadaasi buu ku baaqay waa naftan in darawale noocan leh hadii nabada la doonayo waa in dadka loo tixgeliyaa maamulkooda ay doonayaan iyo doonistooda maamul kale ma qasbi karo warkiisu waa cadiyahay wallahi munaafiq ma waar heede siyaasad baan isku haynaa maamul baan doonayaa meeshan maamul baa iga soo galay ayuu taagan yahay meesha xaqiiqada ka jirtaana waa intaas iyo maamul kale ka soo galay ilaahay walaalo waxsan ilaahay meel kale ha ka siira darawalo halkan baabaatay ma ka soo baxayaan waa ma ergaabo noqon mayso laba qaybood iyo laba calanley ergaabo ka tawxiid kale ayaa ka taagnaa qiyaamihii intu dhacayana waligii ka taagnaanaya ee ku biyaan hadaa diidana waxaad ka hesho waxba aan naga siin ay leeyihiin labka Muuse Ismaaciil iyo labka reesha Isxaaq halka degan iyo labka garxajise ergaaba degan maahan markaa kuwani labka matala reerahaasi sida sharafta leh waxay doonayaan inay garanaya waxna iska celin yaqaan nabad sida loogu noolaadana yaqaan oo hadii meeshaasi nabad la'aan ay ka jirto amba reerahaasi sayaan adeero la subhanahu markii uu dagaal ku socday ay reernimo isku dili lahayd waxbada halkaasi laga bilaabi lahaa reernimo meesha ma jirtee waxa soo galay caabuqii lalaha khaatman naas dheer ayaa halkaasi leeyay keera ila maaye halka aad keentaana maamul goboleed abo macaanka ayay ka tahay rag noocaas la soo yiri ayaa magacyada reeraha maanta isticmaalaya marka hadii xataa reernimo noqoto Naalay Axmed degurihiisa waa loo tirin 22 guri buu Ceerigaaba ka degay hartiga kale meesha degan oo odaygaasi sheegay leeyahay daaroodoo dhan ba degan Ceerigaabo intuu harti dhaaf intuu dhulbaanta dhaafay uu Naalay Axmed dhaafay uu wersangalay dhaafay oo wuxuu tagay harti uu dhaafay uu sii dhaafay kabla laxbuu daaro tagu daaroodoo kala oo dhan baa degan reesha Isxaaqna madegana garxajis oo waxa degan reer yaro Muuse Ismaaciil ay dhaahdo waa balaad macalaabiyal ku aqli xumaa ninka nooca oo hadlaaya baa wuxuu taagan yahay nabad baan ku baaqaynaa aanu qaadanay nabad hadalkiga soo jawaabeen hadal labadaysan waana wuxuu ahaa hadalkii gastriga ku riday aqla caafimaadka cimriga baa siyaadiye Suudaan madar uu ka dhawaajiyay garxajiso habar Yunisay Muuse Ismaaciil nabad wixii kula noolaan waaya iska celiya kii nabad kula noolaadana nabad ku wada noolaada hadalkuna haduu mid yahay laba lagama dhigo labkuna hadalkiisa sidaas uu qodobaysta marka labkaasi hadalkiisa qodobaystay ayaa ka keenay waxan oo munaafaqada laakiin waxaasi nabad ma yahay ku baaqeen munaafaqad bay yahay laakiin waxa xaqiiqada dhabtay jirta waa in darawal hadalkaasi uu sheegay meelo in darawal ka maqayo nabad lagaga hadlaayo
ونبض بينا آمين ولقي يالله ولا بلس أو طائر الدروال ما ككفت ما وحاس هدين نبض الدوني نبض الدوني وأروح الدوني يسوي أنا الدروال وحقيقة ماشي كتير تدوني أيو الشيء ما هنن هي الله بيا ما هن لبوشيله نكرجع سكستو سكو هيسان والله الشيء وحويه نكاسي ونن وحدونا يا أيو عاديين والشيء كرا وأنت بلسوا يستاجون لواحد صار عنده أبو هلي أبو واي وحنيسة أيو كوينا بحنيسة أيو كواي نكاس هو نك النوعاس ما هن لعلع ربما يسكن الله أو سيدا كون ما ركتي نبض بين تمر فقط ده كباقة يا ودي نبض كباقة يا نبض بلا شروط ده هيدو عدك جده نبض بلا شروط ده بانو قالنا بيقولون لا يعني يقولون نبض بلا شروط ده بانو أقبلني كل ميل اسكو ما حقين بتبقى السودان ما هني كري وما أنا قنصنين قاشامو كسو هالليا بطو بطا حكا يويا قانانكا بري كنت هذه ما ركتي إنك هالقعية عمر معمودة كسو هالليا إسنكا إنو يهاي هي نين هي حرتيا أو قبل اللحاء أو مقراسة داروضا أو مقراسة مثلا كستو كهاللايو حكا يويا قانان بي السودان مدر نو ما يقاران إنو مقراسة ومتو هبريونيس عقلية النوع عاسا waxaan qabaabaa markaa kula nabad baan ka rabaa nabad bay ka rabaa waa markaa hadalay gudaaradkii aanu hadalka kaba siliistay runtu waxay tahay meesha waxa la isku hayaa waa ceergaaba ha noqoto laba calanley iyo noqon mayso is all markaa ceergaaba waxay noqotaba waynu arki doonaa aan bixiniyeena inta saa loo tumo laba calan baa halka laga taagan doonaa aan babase xiyo inta saa u tunaaba waxay ahaan jireen ay ku laaban doonaan wassalaamu calaykum